السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو بندقة شاربة شو oo ah halkan kala socotaan mar walba iyadoo bishan ay tahay 20 bisha 18 November 2021 wararkan kusoo qaadayna waxaa kamid ah maantay oo kooban hay'ad guddigii loo saaray inay soo baaraan kiiskii Ikraan Tahliil oo sheegay in lagu waayay hay'adda NISA in ay lug ku lahayd maqnaanshaha ama hadday dhimatayba Ikraan Tahliil ayagoo maanta soo saaray nuqul kamid ah warkoodii ay ku cadeynayaan in aysan hay'adda NISA ku lahayn dilkii Ikraan Tahliil oo sheegeen in al-shabaab ay dileen kun raacsan yihiin warbixintii hore ee NISA ay sida hordhaca Ikraan Tahliil uga soo saartay kiiskeedii iyo waxaan soo qaadanaynaa haddii ilaahay idmo Allah u naxariistee maanta oo la aasay wariye Cabdicasiis Afrika oo ka tirsanaa wariyaasha qaranka Soomaaliyeed haddaad ku cusub tahay channelka subscribe ka saaro si aad mar walba aad nala socotid natiijo baariseed oo hordhaca tixraac xaashida taliya kusimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee la qoray 3 bishii 11 2021 kuna saabsanayd gacansiin baariseedka Ikraan Tahliil Faarax iyagoo fulinaya amarkii ra'iisul wasaaraha ee 26 bishii 10 2021 uu ku amray xafiiska xiraalinta ee hay'adda NISA in ay ka wada shaqeeyaan baarista kiiska Ikraan Tahliil si cadaalad loo gaaro iyagoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo wareejiyay galbaariseed ay horay u sameysay hay'adda NISA sidoo kalena ay ku soo wargelisay in ay diyaar u tahay ku shaqaynta iyo la shaqaynta amarada xafiiska xiraalinta si waafaqsan sharciga dalka guddiga baarista oo ka kooban xirilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka socda nabad sugidda waxay bilaabeen baaristii iyagoo dib u akhrin ku sameeyay gal dacwadeedkii la soo gudbiyay waxayna go'aamiyeen in dib loo wareysto dhammaan dadkii ay cabashadu ka taalay xafiiska guddigu waxay wareysteen isla markaana cadeymo dib uga wada qoreen Cabdiqani Maxamed Cismaan wadnaqabad iyo Asma Yuusuf Cumar kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose NISA ee cabashada laga soo gudbiyay sidoo kale waxaan cadeymo ka qornay taliya kusimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo Cabdullaahi Aadan Kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha NISA kuwaasoo mas'uul ka ahaa xilligaas hay'adda NISA guddiga baarisu wuxuu baaris ku tagay xafiiska taliska hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyagoo u kuurgalay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka sidaa darteed guddiga baarista kiiska waxaa u soo cadaatay in hay'adda sirdoonka NISA ay si hufan ula shaqaysay xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka Ikraan Tahliil Faarax labo intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax cadeyn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad Ikraan Tahliil Faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay'adda NISA saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedkii ay soo gudbisay hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka NISA oo sheegaya in Ikraan Tahliil Faarax ay afduubteen al-shabaab isla markaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay u soo gudbiyaan
guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay. halkan kala socotaan waa bandhiga shaariba show oo aad mar walba kala soconaysaan barteena youtube-ka iyo barta aan ku leenahay facebook-ka. haddaad ku cusub tahayna subscribe-ka saaro. waxaa iminkana noo soo socda haddii eebaha awoodda leh uu idmo cabdicasiis africa, wariyihii u shaqaynahayay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona, oo maantay lagu aasay magaalada muqdisho markii ay dileen shalay niman ka tirsanaa ururkaasi al-shabaab oo magaalada muqdisho ay ku dileen, iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo aada loogu ammaanay shaqada uu hayo, taasi oo ammaantaasoo ka timid beesha caalamka khaasatan amisom iyo wadamada deeqaha dalka soomaaliya siiya, iyadoo khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xilligiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu sii xoogeystay. kusoo dhawaada qeybahaas oo idinku soo socda haddii ilaahay uu idmo. allah u naxariistee maanta magaalada muqdisho waxaa lagu aasay oo aas weyn loogu sameeyey cabdicasiis africa oo ka tirsanaa wariyaasha waaweyn ee dalkaasi soomaaliya ee ka shaqeynaya wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona. cabdicasiis africa oo ay dileen gabarqabayaasha shabaab ayaa isu qarxiyey nin daaqadiisa qabsaday kadib gaari yar uu la socday markuu kasoo baxay maqaayad u dhoweyd dahjirka darsoon ee magaalada muqdisho. kadib markay maqaayadaasi qado u galeen ayaa cabdicasiis africa oo albaabka ganjeelka maqaayadaasi sida la sheegay gubjoogayaanna u sheegeen shaariba show in nin uu daaqada qabsaday jaakad madow qabay, kadibna la arkay daaqadii ninka laalaada iyo qarax bartamaha laamiga gaariga kula dhex qabsaday, iyadoo cabdicasiis africana uu saarnaa qeybta ninkaasi al-shabaabka ah uu ka qabsaday daaqada gaarigaas oo ahaa gaari yar oo nooca raaxada ahaa. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madax badan ayaa halkaasi uga tacsiyeeyey, iyadoo naxdin ay ku ahayd shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho khaasatan ku nool geerida ku timid cabdicasiis africa. cabdicasiis africa wuxuu ka mid ahaa dadka ay sida aadka uga baqaan al-shabaabka, weliba markii codkiisa ay maqlaan ay uga darnayd xabadda dhacaysa. haddaba maanta ayaa lagu soo gabagabeeyey aaskiisi magaalada muqdisho. intaas ayaanu kusoo koobaynaa. allaha naxariistii janna ka waraabiye. iyadoo uu la taagan yahay khilaafka sii xoogeysanahaya u dhexeeya madaxweynihii taladiisu ay dhammaatay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha kusimaha ah ee dalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa khilaafkooda cerkiis usii shareeray, ayaa maantay beesha caalamku bogaadin u jeedisay ra-iisul wasaaraha lana safatay, ayagoo beesha caalamku ku tilmaamay ra-iisul wasaare roble nin ka shaqaynahaya horumarintaas sidii loogu socon lahaa doorashooyinka dalka la filahaya dhammaan dhowaan inay ka dhacaan. beesha caalamka oo farmaajona ku tilmaamtay qaswade, ayagoona go-aano la filahayo dhowaan inay kasoo saaraan barnaamijka uu farmaajo isku hortaagaya doorashooyinka qaranka iyo xilalka uu magacaabayo ee aan dastuurka aan waafaqsanayn dalka soomaaliya. waxaan la soconnaa habeenkii xalay ahaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku naqdiyey warqadda xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxday, laguna amarkay idaacadda sona waa telefishinka iyo idaacadda qaranka in aysan kasii dayn karin wax war ah ama tikreeta ah ee ku saabsan wixii allaali wixii farmaajo uu soo saaro. halkaasi oo amarkaasina wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay qaadatay kana saartay wararkii iyo tikrootooyinkii wax ku magacaabay ee xalay saqdi dhexe uu soo saaray farmaajo, iyadoo idaacadda telefishinka qaranka iyo raadiga qaranka laga sii daayay midii ra-iisul wasaare roble uu sii daayay. haddaba waxaa la filahayaa beesha caalamku 1 bisha December inay shir ka yeelato arrimaha Soomaaliya, iyadoo ku taageeraysa ra-iisul wasaaraha amarna lagu siiyay ra-iisul wasaaraha iyo awood buuxda in uu asagu yahay shakhsiga kaliya ee ka shaqeyn kara amarna u qaba arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya madaxna uga ah, sida ay sheegeen hay'ada laga soo xigtay oo lagu kalsoon yahay xarunta Yunus Umusom ee Muqdisho Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa waa markii labaad ay amaanto ra-iisul wasaare roble, shacabka Soomaaliyeedna ay iyaguna ku ammaaneen shaqada iyo hufnaanta uu wado, iyadoo shacabkuna ay ku dhaliileen farmaajo dibindaabyada uu la joogo villa Soomaaliya ee uu ka shaqeynayo in uu dib u dhigo doorashadii dalka mar walba oo hore loo socdana uu khilaaf cusub abuurayo Mr. Farmaajo. haddaad ku cusub tahay shaariba show fadlan subscribe ka saar si aad mar walba aad la socotid. waana mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.